barashada daawooyinka sida farmakolojiga. Caawa waxaan ka hadlaynaa Mebendazol maxaa la dhahaa? Composition. Daawadan waxay ka samaysan tahay benzoyl, benzimidazole and carbamide. Therapeutic drug. Daawooyinka uu ka mid yahay antihistamines. Available. Maxaa la heli karaa daawadan? Waxaa laga heli karaa kaniini iyo sharoobo. Indication or principal uses. Isticmaalka daawada. Daawadan waxaa loo isticmaalaa qaar ka mid ah gooryaanada sida worm infection, oscariasis, pinworm disease, hookworm infection, hydatid disease, and giardia. Side effect of Mebendazol. Dhibaatada ay keento Mebendazol waxaa ka mid ah lambar 1 vomiting matag, lambar 2 headache madax xanuun. How to drug work. Sidee daawadan u shaqaysaa? Mebendazol waxay dhex gashaa in ay soo saarto hab ay ku jirto ka hortag gooryaanka ee lagu soo nuugay sokorta. Dosage of Mebendazol. Daawadan qiyaasta laga qaato. Daawadan waxaa la siin karaa carruurka weyn 2 sano iyo dadka waaweyn 100 miligram. Muddo 3 maalmood daawadan ku celceli bukaanka 2 ilaa 3 isbuuc. Kadib waa caafimaadaya insha Allah. Drug interaction. Ma jiraan daawooyin ay isdiidaan. Waxaa lala qaadan karin daawadan bamazepine. Drug interaction. Ma jiraan cudurro saameyn ku leh daawadan. Haddii aad qabto cudurrada ay ka mid yihiin cudurka bayrka ama Crohn disease ama ulceration colitis. Contraindication. Lama siin karo daawadan carruurta ka yar 2 sano. Lama hayo wax data ah ee ku saabsan wax dhibaato ah ee u geysan karto hooyada uurka leh. Wabillahi tawfiiq. Halkaas ayay nooga egtahay cashirkeennii caawa. fadlan subscribe, share, like, comment si dadka kale u gaaraan. Waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.